saxaabiga magaciisa la yiraahdo aan ku soo xirayaa Mus'ab ibn Umayr saxaabigan markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu diraayo oo loo diraayo Madiina meeqa sano jiray 18 sano ayuu jiray asoo 18 jir ah waxaa la dhahay bax diinta gaarsii Madiina Munawwara guri kasto diinta uu galiyay awwal safiir fi islaam ala dhaha Mus'ab ibn Umayr maanta 18 jirkeena ka waran jidka la gudbiya iska dhaaf inuu wax dad u sheego marka dhalinyarooy waxaa la rabaa diinta inaad u gargaartaan waxaa la idinka rabaa mas'uuliyadda culimada leh ma saaran qof kasto mas'uuliyad way saaran tahay waxaan ku soo xirayaa xadiidkii dheeraa xadiid saxiix sab'atu yudhilluhum Allahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh todobada qof maalinta qiyaamaha loo harinaay harka ilaahay mooy har kale aan jirin yaa kamid ah shaabun nasha fi cibaadatillah qof ku soo barbaaray cibaadada ilaahay marka dhalinyarada maadaama oo dhalinyarada aan rabaa inaan la hadlo waxaa la idinka rabaa mas'uuliyadda diinta way idin saaran tahay dadka oo maanta la rabo inay diinta u gargaaraan idinku waay asxaabul kahfi meeqay ahaayeen تضرب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى تضرب في أهاين ظلمي مركز أو مركز سعودي كجذوبين ميري جلن وحواي إلهنا وحواي وقرقار فيري وقال يرى إنهم فتية القرآن قال يرى استعمال وجده إنهم فتية مركز قال يرى وحال ذي كربا إن وقته أن كله بالسوشيال ميديا يوم لها ما لا يعني دين تمسؤولية يا إذن كسارا